haddaba su-aashu waxay tahay dugsiyada qur-aanku ma yeelan karaan nidaam dhisan oo fasaxya leh oo xilli wax la baranaya leh iyo imtixaano la gelayo oo laga faa'iideysan karo ama qayb laga soo qaadan karo iskuulada waxa ay sameeyaan ahmiyada ama mudnaanta ay leedahay fasaxa qofka insaanka ama bini'aadanka ah ahmiyad noocee ah ayuu u leeyahay gaar ahaan carruurta yararka diraasado badan ayaa waxay tilmaamayaan waxaan ka sheegi doonaa 5 qodob oo muhiim u yahay in ardaydu ay fasaxyo helaan marka ay joogaan goobaha tacliinta dugsiyada quraanka ay ugu horeeyaan marka ilin asoo ku taagan tahay wuxuu yiri goor la fasaxayo dugsiga ma lahan miya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسو دوادا برنامج كيني مرشد المعلم oo aan uga sheekeyn jirnay horumarinta dugsiyada quraanka waxaan ka cudur daaranaynaa muddo inuu kala go'o naga galay mashquul iyo safar iyo arrimo la xiriiro insha Allah taala maanta waxaan aan ka hadli doonaa mowduuc aad iyo aad muhiim oo ah dugsiyada quraanka xalqadani waxay ku saabsan tahay su'aal ah ma yeelan karaan dugsiyada quraanku fasaxyo iyo teeramyo iyo jadwal ay ku socdaan sida kuwa iskuulada oo kale ah sidaan ka warqabno iskuuladu waxay leeyihiin xilli ay bilowdaan xilli ay dhamaadaan sanadkii waxa ku dhex jiro 2 teeram ama 3 teeram kolba inta laga dhigo kuwaas oo ardaydu ay ku nastaan waxa jiro meel ay ka bilaabato iyo meel ay ku dhamaato waxa jiro imtixaan laga qaaday ardayga oo inta uu waxa uu soo bartay intaas lagu guda jiray muddada oo looga qaadayo kadib fasax buu galaa fasaxaas oo maskaxdiisii iyo ma aragtay nafsiyan xagga nafsi ahaan iyo xag maskax ahaan iyo xag dareen ahaan intaba ardaygii uu dib isugu soo cusboonaysiiyo kadib wuxuu bilaabaa qayb cusub iyo sanad cusub iyo tacliin cusub halkaas waxa ku sii jiro nidaamka iskuulada marka laga hadlayo in ardaygu uu baasayo oo uu baasayo intuu ka baaso dugsi hoose ama maxaa la yiraahdaa xanaanada carruurta dugsi hoose dugsi dhexe jaamacad dugsi sare jaamacad ilaa iyo PhD uu ka gaaro sanado aad u badan waaye laakiin waxa kaliya ee qofka ku hayo dareenkiisa hayo ee ka dhigaya inuu ku sii socdo waxa weeye nidaamka uu ku socdo iskuulku ama nidaamka ay tacliinta ku socoto oo ah inuu ardaygu ogayo mar walba hadaf iyo meel uu u socdo inay jirto hadafkaas iyo meesha uu u socdo oo qofka waxa la yiri meesha ugu fog haduu u socdo haduu og yahay meel uu u socdo wadadii dheereed ayaa u soo yaraato sidaan la socono dugsiyada quraanka waxa soo dhan kama jiraan ardaydii iyo macallinkii iyo maaragtay mujtamacii dugsiga quraanka dhiganayay ma jiro fasaxyo ay og yihiin oo ay leeyihiin oo ay qaadanayaan taasoo keenayso daal iyo ardaydii inay dugsiyada ay nacaan oo ka cararaan haddaba su-aashu waxay tahay dugsiyada quraanku ma yeelan karaan nidaam dhisan oo fasaxya leh oo xilli wax la baranaya leh iyo imtixaano la gelayo oo laga faa'iideysan karo ama qayb laga soo qaadan karo iskuulada waxa ay sameeyaan ama nidaamka iskuulada ka jiro inta aan u gudbin insha Allah taala waxaan ka hadlaynaa marka horeete ahmiyada ama mudnaanta ay leedahay fasaxa qofka insaanka ama bini'aadanka ah ahmiyad noocee ah ayuu u leeyahay gaar ahaan carruurta yararka diraasado badan ayaa waxay tilmaamayaan in qofka bini'aadanka ah uu u baahan yahay fasaxa wuxuu taraa wax fara badan ayuu qofka bini'aadanka u taraa waxaan ka sheegi doonaa 5 qodob oo muhiim u yahay in ardaydu ay fasaxyo helaan marka ay joogaan goobaha tacliinta dugsiyada quraanka ay ugu horeeyaan qodobka koobaad waxa weeye insaanku markuu ku jiro camalka joogtada uu ka daala waa waxa loo yaqaan rootinka kan lagu soo celcelinayo aad iyo aad buu uga daalaya taas ayaa waxay keenaysaa inuu u baahan yahay inuu ka dhaxbaxo rootinkaas oo uu u soo nasto oo muddo intuu u soo nasto uu dib ugu soo noqdo maxaa yeelay qofka markuu wax baranayo wuxuu ku dhex jiraa dhib fara badan cunugu cashar inuu diyaariya laga rabaa aroortii inuu kalaha laga rabaa waxa laga rabaa inuu muraajaca sameeyo dugsiga inuu aado halka inuu fadhiyo saacado badan waxa soo dhan waa shaqo soo noqonayso waxay u baahan tahay marka cunugii inuu helo fasax uu og yahay taas oo ka saacidaysa inuu dugsiga jeclaado oo hore ugu socdo waxaan xusuustaa maalin maalmaha kamid ah ayaa wiil yar oo dhalay baa yimid
wuxuu yiri aabo ilin baa indhihiisa ku taagneed cunugaas wuxuu yiri aabo dugsiga goormee la fasaxayaa dugsiga goormee la fasaxayaa fasax baan u baahanahay buu yiri macnaha waxaan ku qiyaasayaa 7 jir ama meelaha markaas uu ahaa marka ilin asoo ku taagan tahay wuxuu yiri goor la fasaxayo dugsiga ma lahan miya waxaan ku yiri ramadaanka la fasaxaa dugsiyada inta badan saan ka war hayno inta badan waxa la fasaxaa ramadaanka in yar oo kamid ah ama maalmaha ciida mar arinta laga sheekaysanaya ayaa qof kamid ah dadkii meesha fadhiyo wuxuu soo sheegay wuxuu yiri macallimiinta qaar maalmaha ciida xitaa carruurta way soo celiyaan gelinka dambe ayay muraajacay u soo celiyaan taasoo طبعا waa dadaal iyo jacayl uu qabo ardada inuu wax baro laakiin waxa ka maqan macalinkaas fasax mar walba carruurta ay helaan inay wax barashadooda ay dan u tahay qodobka labaad oo ahmiyada siinayo ahmiyada ay ka muuqanaysa ahmiyada ay leedahay fasaxyadu ay leeyihiin waxa weeye diraasaadku waxay tilmaamayaan in qofku markuu fasax galo uu maskaxdiisa ay nashaad ay galayso oo ay soo cusboonaanayso ama tajdiid nashaad waxa la yiraahdo tajdiid الذهن ذهنigiisi iyo dhaakiradiisi inay dib u soo cusboonaanayso adigu markaad wax baranaysid ama wax akhrinaysid ama shaqo ku jirtid mar waxaad arkaysaa maskaxdaada inay isxirayso waxba ma fahmi kartid ba casharkii kuuma socdo wixii aad akhrinayso kuuma socdo maskaxdu waa isxirayso markaad u soo nasato oo soo noqoto waxa ku galay ruux cusub iyo nolol cusub iyo naf cusub baad ina wax dareen cusub baa ku galayo wixii kugu adkaa oo dhaqaajin weeday ayaa dib maartay u dardaraysa walidaalika waxa lagu la taliyaa ardayda markay jaamacadaha dhiganayaan ama casharada diyaarinayaan ama buuxda diyaarinayaan mar walba wax kugu adkaadaan jooji meel aad ama nashaad samee ama maartay sport soo samee ama soo soco ama xitaa biyo isku soo shubo soo qubayso baraafuun isku soo shubo wax iska soo bedel maartay saad wax ku waday wax ka bedel kadib nolol cusub baad ku soo noqonaysaa nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis saxiixa fi sahih muslim wa isagi ku yiri asoo arinta naga hadlaay ida qaama ahadukum min al-layl fasta'jama al-qur'an ala lisani midkiin hadu salaatu leyl u kaco oo qur'aankii uu iska xirxiro arabkiisi baa xirxiray qur'aankii ayuba fahmi waayba falam yadri ma yaqul falyatajib bilay xadiisku qofku hadii uu wuxuu oranayaba uu garan waayo ha seexdo oo ha istuuro ha yara seexdo ayuu leeyahay xadiisku taa marka waxay keenaysaa inuu soo nashaad leh oo marka dambe uu salaadii iyo cibaadadii uu soo kaco marka qodobkan labaad wuxuu leeyahay maskaxda qofka bini aadanka ayaaba refresh qaadanayso iyo nashaad cusub qaadanayso cunugu markuu soo noqdo si cusub ayuu maartay u wajihi waxbarashadii iyo qaabkii wax ku wada qodobka saddexaad oo cadeynaya ahmiyada ama mudnaanta ay leedahay fasaxu uu leeyahay iyo carruurta inay fasax helaan waxa weeye waa xiisaha ama in meesha loo soo xiiso waa rafcu daaficiyya wa tashwiiq daaficiyada in iyo doonista ardayga in la sii xoojiyo iyo inuu meesha u soo xiiso u soo maaragtay wuxuu soo xiisayaa ardaydii wuxuu soo xiisayaa macallinkii wuxuu soo xiisayaa goobtii waad aragteen markaad muddo fasax aad ku maqnaatid goobta shaqada u soo xiisaysaa saaxiibada baad u soo xiisaysaa macallinkii baad u soo xiisaysaa ardaydii baad u soo xiisaysaa markaasa si farxad leh lagu soo noqonaya walidalik gaar ahaan carruurta yarka kuma sii jiraan maxaa yeelay carruurta runtii waxay u baahan yihiin xilli badan oo ciyaar inay helaan ciyaartu aad iyo aad bay muhiim ugu tahay insha Allah xalaqaad kale ayaan uga hadli doonaa ahmiyada ay carruurta ay ciyaartu ay leedahay waa ciyaartu waa wax muhiim jiddan carruurta inay helaan oo maskaxdooda iyo koritaankooda qayb weyn ka qaato anagu waan iska yareysanaa war ma fariisatid edab ma yeelatid baan iska dhahnaa waalidiinta laakiin waxa weeye sida saxda ilmuhu wuxuu u baahan yahay waqti badan inuu ciyaaro marka in loo soo xiiso gelin ayaa ku jirto oo ardayga inuu soo xiiso ah goobtii uu wax ku baranayay carruurta waxa la yiraahdaa waxaan tarkiiska la yiraahdo ama waxa inay la socdaan ama meel baad fariisay wax baraad ku tiri inta ay waxa la socon karaan ama adoo hadlayo oo wax sharxaya intay kula socon karaan waa daqaa'iq kooban khubarada cilmi nafsi tarbawiga waxay sheegayaan cunuga sanad walba oo umrigiisa kamid ah hal daqiiqo laga soo qaadaa bay dhaheen inta uu kula socon karo marka laga fiiriyo مثلا waxa ma sharxaya cunugu uu dhageysanaya inta uu dhageysan kar 3 sano markuu jiro ama 4 sano markuu jiro 4 daqiiqo oo badnaan qaar way ka sii yareeyaan hal daqiiqo yiraahdaan cunuga 9 sano markuu jiro 6 daqiiqo ila 9 daqiiqo inta uu dhaxayso ayuu kula socon karaa kaliya
kadib waxa weeye uu baxaya uu isqasbaya uu ka baqaya ma uu kulama socdo marka cunugan meesha iska fadhiyo sanadkii oo dhan aan fasax lahayn meel uu ku hiranaya iyo fasax aan lahayn waxa weeye maskaxdiisii iyo inuu xiiso uu u qabin oo meesha uu isaga socdo bay noqonaysaa maarta uu soo xiisin meeshii iyo goobtii qodobka shanaad oo kamid ah qodobada muujinaya ahmiyadda ay leedahay iyo mudnaanta ay leedahay fasax inay caruurtu ay helaan caafimaadkooda iyo maskaxdooda iyo waxbarashadooda iyo dadnimadooda inay ka qayb qaadanayso gaar ahaan waxbarashadana ay muhiim u tahay qodobka afraad waxa weeye waa goolka oo loo tartamo ama as-sibaaqu naxwa al-hadaf macnaha waxay fasaxu wuxuu qayb ka qaadanayaa ardaygu inuu mar walba tartan ku jiro oo halkuu u tartamaya fasaxa soo socda uu sii tartamaya hadda waad aragteen markaan shaqaynayno ama aan wax baranayno maalinka talaadada marka la soo gaaro waa sii farxaysaa maxaa yeelay maxaad og tahay khamiistii jumcada ina fasaxlada ama sabtidii axadda marka u sii dhawaataba farxad baa sii dareemaysa marka usbuucii oo dhan qofku wuxuu ku shaqaynayaa enerjiga uu ka helayaa tartan inuu ku jiro uu goolka u ordayo goolkoo ah weekendiga ama nihayatul usbuuc maalmaha fasaxa usbuuca ayuu u sii socdaa oo u sii ordayaa marka cunugu markuu og yahay dugsiga inuu 3 bilood marka la dhigto kadib fasax la gali doono taa waxay saacidaysaa xitaa waxbarashada bay saacidaysaa waxay saacidaysaa ardayga inuu meesha uu ka daalin oo si maartay leh xamaasad leh oo ugu sii ordo macallinkii iyo ardaygii iyo dugsigii iyo idaaradii intaba ay u sii orotamaan ay u sii socdaan ila halka iyo maartay inay ku sii wajahan yihiin inay gaaraan hadafkii oo ah fasaxi gaar ahaan markii uu jiro manhaj la raacayo oo ah ardayda in intaasoo jus laga rabo inay gaaraan 4 bilood kadib imtixaan la qaadi doono imtixaanka runtii muhiim ah iskuulada iyo jaamacadaha waad aragtay buug weyn baa laga yaabaa inaad ku dhamayso 2 bari oo xifdisi asoo dhan min ajli imtixaanka inaad martay haday imtixaan jiri lahayn yaaba wax baran lahaa marka madrasada markii loo sameeyo sida aan ka hadli doono haduu ilaahay yiraahdo qaybta dambe ee barnaamijkan hadii loo sameeyo jadwal iyo manhaj oo ah ardaygu inuu intaas oo bilood uu wax baranayo waxa uu bartay labada jus oo uu bartay ama juska uu bartay ama saddexda uu bartayna imtixaan looga qaadayo dugsigu haduu ka kooban yahay 5 macallin oo kale hal dugsi ay dhigto tartan in laga qaadayo dhamaan macallinka ardaydiisu ay hadafka gaaraan ay u baasaan oo ugu badanna abaalmarin gooni ah la siinayo marka wuxuu ka saacidayaa ardaydii iyo macallinka iyo maamulka intaba in ay jiraan meel ay ku hoyanayaan amalka ama waxa la yiraahdo diilada oo waxa ugu muhiimsan qofka bini'aadanka sida ninka gabayaaga ahaa uu yiri u'allilu nafsa bil amali arquha ma adyaqa al 'aysha lawla fusxatu al amali oo macnaheedu uu yahay nolosha waxaan ku maaweeliyaa amalka iyo yadadiilaha haday jiri lahayn noloshu ciriiri bay noqon lahayd marka ardayga markuu meel hiigsanayo oo 3 bilood ama 4 bilood kadib fasax uu socdo yadadiilay sameynaysaa waxay siinaysaa inuu yadadiilada uu cayrsado qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka shanaad oo cadeynaya mudnaanta ay leedahay fasaxu iyo ahmiyadda ay u leedahay tacliinta waxa weeye fasaxyadu waxa inta badan loo isticmaalaa in looga gudbo marxalo kalena loo gudbo heer in looga gudbo heer kaleetana loo sii gudbo sida awgeed saan soo sheegnay iskuuladu waxay ku dhisan yihiin oo iskuuladu ay ciyaalku u jecel yihiin oo ay ugu xiisaan dugsigana ay uga cararayaan maartay dugsigana ay u jeclaan waxa weeye iskuulku wuxuu leeyahay heerar cunugu u baasay koobaad baan dhameeyay leeyahay saddexaad baan dhameeyay shanaad 8kii ama maartay dugsiga dhexe intaas ay iga dhiman dugsiga sare intaas ay iga dhiman marka fasaxa gaar ahaan markii lagu xiro heer in laga baasayo heer kale loo baasayo oo dugsiyada quraanka in heerar loo sameeyo farbarku uu heer noqdo farbarka dhexdiisa oo heerar noqdaan oo cunugu markuu dhameeyo fatxada ama kordhiga uu heer buu dhameeyay sida dugsiyada qaarkood mucaasirka ay sameeyaan inay dhahan ardada jaranjaro ayaa la gudbaya jaranjarada koobaad waa ka soo gudubtay oo fatxa soo dhameysay ama xuruufta alif xamaalaha soo dhameysay marxaladii labaad ayaad u gudubtay oo ahayd مثلا fatxada sukuun damada kasrada hakada ila iyo 8 ama 9kii qaybood ay farbarku uu ka koobnaa qayb walba kamid la yiraahdo qayb baad dhameysay waad ka baastay qaybta ku xigtaa u sii baastay farbarka markuu dhameeyo uu u sii gudbo maxalli qaybta kale oo u sii baasi laha oo ah inuu مثلا 5 juz horeeta waa marxalo la yiraahdo mubtadi mutawassit قبل التحفيظ حافظ in marxalada noocaas oo kale ah loo kala saaro marka shanta qodob oo soo sheegnay oo ah qaybaha maartay mudnaanta ay leedahay fasaxyadu ay leeyihiin midda koobaad waxay ahayd in
oo qofka bini'aadanka asaasanba uu nasiino u baahan yahay carruurtana si gooni ay nasiino ay ugu baahan yihiin qodobkii saddexaad labaad oo sheegnayna wuxuu ahaa maskaxda inay nashaad geliso oo qofka bini'aadanka iyo ardaygii nashaad ay maskaxdiisa u galayo oo marka uu soo noqdo siduu wax u baranayo xitaa sidii hore ay kasii fiicnaanayso qodobka saddexaad oo sheegnay wuxuu ahaa xiise gelin oo ah inuu ardaygu meesha u soo xiiso goobta macalinka ardaydii saaxiibadiis intaba uu u soo xiiso qodobka saddexaadna wuxuu ahaa fasaxa waxaa ku jiro markuu fasax jiro waxay u tartamayaan dadku target ama hool ama goal ayay u tartamayaan goolkaas oo ku sii saacidayo inay hore u socdaan qodobka ugu dambeeyana wuxuu ahaa in tartanku loo isticmaalo heer in laga gudbo oo heer kale loo gudbo sida dugsiyada iskuulada iyo dugsiyada hoose iyo tacliinta kale oo nidaamiga ay tahay